بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آديات بيوم هاتسيهين الشيخ حسن يا شيخ ياسين وكهر ريبا runtii kelmada aad u qiimo badan ayay noo soo jeediyeen wuxuuna kaliya ku darayaa inaan sii akidoon sii adkeeyo qodobka culimadu ay sheegeen oo ah in cilmiga guud ahaan lagu dadaalo gaar ahaan dumarku ay ku dadaalaan dumarku wax way baran karaan aqoontana heer sare way ka gaari karaan meel aad iyo aad u sareysa ayay dumarku ka gaari karaan aqoonta waanay kula tartami karaan ragga kana sara mari karaan عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين إن يربيها وحكله طبعا سنضاد عن ضمين يا النبي عليه الصلاة والسلام لشوكتي طبعا كاس النضاد علمي آد يا آد بضم بي رسولك كقاضي عليه الصلاة والسلام سيدي يتبنشر بيهد مركو النبي قول انتي سيدي يتبنشر أي أهيد مركي رسولك عليه الصلاة والسلام قول انتي مع ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها علمدي ووينيد اي وقت قادي بي أهيد تابعينتي صحابة علمي كورنيسي علمي أقبضا لحظة قفي كوريان عائشة أيها كمذا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث تأقبضا لحظة قفي اللي قصوا وريي وحكو شرته عائشة رضي الله تعالى عنها يستدي تبنشر أهيد مركي رسولك عليه الصلاة والسلام وقيريودي علماء واوين أمضى إيا علماء الصحابة بوي كشرته عائشة رضي الله تعالى عنها ولا سوي دين شلا يوم مسائشة إيدا أيها لوجسوا نقنشري dadkii ka dambeeyayna dumar aqoon badan yeeshay waa kamid ahaayeen oo kutubta taraajimta taariikhdu dumar caalimaad ahaa oo aad u cilmi badnaayo fara badan bay qortay waqtigeenan maanta waxa aqoon sheegta gabdho badan oo qoliyo markaa hay'ada ah ama reer galbeedii ay gacmaha ku hayaan ama siminaaraha siiyaan ama jaamacadoodaba ha ka soo baxaan markaasay gabdhahaasi dumarka shiriyaan oo aqoonyahan isaga dhigaan laakiin xaqiiqatan gabadha aqoonyahankii waa gabadha diinteeda baratay fitanta waqtigan inagu badanna waxa kamid ah in xaqii dumarka diinta islaamka laga weeraro oo ay yiraahdaan xuquuqdii dumarkee diintu ay duudsiday ayaan soo dhicinaynaa halkaana ay markaa gabadhii muslimadda ahayd iyadiyo diinteedii isku diraan raggii iyo dumarkiina ay isku diraan oo ay yiraahdaan dumarka xuquuqdoodii ragga qaatay haddaynu weydiino ta sidaa u qaylinaysa ee xuquuqdii dumarka leh aabaha ma xuquuq buu ka qaaday ama walaalka ma xuquuq buu ka qaaday meebay oranaysa waxa waxay walaalkeedu qabsanaysaa ma jiro dadka kalena walaalahood waxba kama qaadin nabadgeli wax yiraahdaan laakiin waxaad moodaa qaar badani wali inaanay helin gabadhii oran lahayd baa la doonaya intay diinteeda barato waxaan yaray wareejinayaan ee marka waxa weeyaan aan macnaha lahayn laba eray lagaga jawaabi karayo qof aqoon leh oo baa garan karaya sida uu markaa uu ugu jawaabayo aamusinayo qolyaha noocaas laakiin haddii aan aqoon la lahayn way ku jabsanayaanoo wax aan jirin bay ayay markaa waxa way kugu harowsanayaan markaasay diintaadii ka hor keenayaan oo dadkaagii ka hor keenayaan oo bulshadaadii iyo mujtamacaagii ka hor keenayaan in badan baad aragteenood maqasheen kuwa xuquuqda dumar kale haddii la weydiiyo la yiraahdo xuquuqdan dumarka yaa qaaday waxa oranayaan raggii qaaday waa dumarkan ay sheegayaan walaalahood iyo aabayaashood iyo kuwii ay dhaleen iyo raggoodii qof dumar oo iyadii ninkeedu is hayaan way dhici kartaa inay iyadu gar daran tahayna way dhici kartaa inuu isagu gar daran yahayna way dhici kartaa laakiin wax ololo weyn loo qaado oo loo yiraahdo xuquuqdii dumarka ayaa raggu qaadeen ma aha taasi rag baa isdulma dumar baa dumar dulma waa dhacdaa waa afraad waa qof
xaqiisi ku xadgudbay laakiin waxani waa ololo looga dan leeyahay xaqiiqa ahaan in lagu duulo bulshadeennani dhaqankii ay lahayd iyo diintii ay lahayd waxaana waxa loogu babacdhigi karaa oo la iska dhicin karaa markii aqoon la yeesho markaasaa la fahmi karaa waxay kugu qaldayaan sida wax u maldahayaan laakiin haddaynan aqoon yeelanin wax baranin de waynu iska dabageli oo durbaanka ayaynu daba qaadan dadka noocaas marka walaalayaal waxaan aad iyo aad idinku boorinayaa inaad aqoonta ku dadaashaan aad marka waxa weeyaan ragga uga dheeraysaan ood la baratantaan ood aqoonta kula baratantaan ayaa la doonayaa runtii gabadha wax baratay way ka raad badan tahay oo ka raadayn og tahay ninka wax bartay maxaa yeelay gabadhu inta badan iyada caruurtii gacanta ku haysa dumarku iyaga ayaa inta badan waxa weeye xaafada gunteeda iyo waxa hoos uga jira aad markaas waxay ugu xog ogaalsan raggu waa maqayaa inta badan ama suuqa ku maqnaado ama shaqaha ku maqnaado ama safarbaha ku maqnaado laakiin inta badan dadka xog ogaalka ah ee xaafada jooga ee waxa jira ka warhaya dumarka weey caruurtad kuwa korinaya dumarka weey hooyada wax baratay ilmaha ay soo saarto iyo hooyada aan wax baran ilmaha ay soo saarto isku mid ma aha ilma wixii uu baranayay markuu guriga yimaado hooyadii ay la wada eegayso oo wixii ku adag u jilcinayso oo wixii ka qaldan u saxayso oo ay la daba taagan tahay iyadu muraajacadii iyo ku celcelintii iyo ilmo hooyadii aanay garanaynba waxaan uu soo dhigtay wax alla wuxuu yahay oo hadday xataa caawi istira aanay caawin karayni da isku mid noqon maayaan sida daraadeed hablaheena yareerina waa inay waxbarashada ku dadaalaan dumarkeena waaweyn waa inay waxbarashada ku dadaalaan haddaynaan wax baranin dhulkaynu ku dhacaynaa laakiin marka wax la barto العلم يرفع بيتا لا أساس له والجهل يهدم بيت العز والشرف علمي يا قونت قري أساس لهين بي كرؤك عصايا أي وحوي أي نستا جاهل لماذا إيمانة قرى شرعانتنا قري عزي يا شرفت لها أي دمسايا هوس ولكتا مركا ولا ريال waxaan idinku boorinayaa inaad wax barataan aqoonta u soo jeedsataan waqtigiina waad helaysaan waad ka jari karaysaan aad waqti aad wax barataan oo aad macahadkaasi iyo macahidda kale ee la midka ahba aad markaa gelisaan inaad markaa ka soo goysaan intaasaan aniguna hadalkayga ku soo koobi lahaa jazaakumullahu khayran assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh